Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada qisada Ramadaanka. Nin ayaa wuxuu ka shaqeynayay dhismaha guryaha, wuxuuna mas'uul u ahaa kambani guryaha dhisa. Ninkani ayaa markii uu gaboobay wuxuu go'aansaday inuu shaqada isaga tago. Kadib wuxuu qoray waraaq uu ku cadeynayo inuu shaqada isaga tagayo. Ruuxii kambaniga lahaa ayaa wuxuu ku yiri, codsigaaga waan aqbalnay, balse waxaan kaa doonaynaa maadaama aad kambanigan ka tagayso inaad noo dhisto gurigii kugu dambeeyay. Ninkii wuxuu aqbalay codsigii loo soo jeediyay, wuxuuna bilaabay dhismihii guriga. Balse ninkani markii uu guriga dhisayay uma uusan dhisin si wanaagsan ee uu iska boobsiyay, wuxuuna ku dhameeyay muddo gaaban gudaheed. Kadib markii uu dhameeyay ayuu furihii guriga ku soo wareejiyay ruuxii kambaniga mas'uulka ahaa. Ruuxii kambaniga lahaa ayaa ninkii ku yiri, laga bilaabo maanta gurigani adiga ayaa iska leh, maadaama aad muddo dheer kambaniga ka soo shaqeynaysay waxaan kuu siinay abaalmarin. Ninkii ayaa aad u naxay, wuxuuna ogaa sida uu guriga u dhisay. Markaasuu naftiisa ku yiri, ma gurigii aan sida qaabka daran u dhisay miyaan abaalmarin u yeeshay? Sida ayuuna ku mutaystay abaalkiisii. Qisadani halkaas ayay nooga eg tahay. Faa'iidada qisada aan ka qaadanay ayaa waxay tahay in aan mar waliba daacad ahaano, nafteena khiyaano ka ilaalino. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay jaalka maalmaha, fadlan subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub aan soo dhigi doono. mahadsanid. فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام يا رب فاقبل صومنا وأعده عاما بعد عام يا رب صل على الذي فاقت محامده الأنام فاقت محامده الأنام وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام.